geedka horta waa geed sida dhirta kale u baxa nooca la yidhaha shrab magaciisa afka laatiinka waxaa lagu yidhaha cata edulis ayaa lagu yidhaahaa dadka qaarna waxay sii raaciyaan research aan ku sameeyey forceka la odhan jiray laakiin magaca rasmiga waa cata edulis hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO wuxuu ugu jiraa mukhadaraadka kuwa la yidhaha grade A oo waaweyn ayuu liiska ugu jiraa sidaas horta mukhadaraad ku yahay ama drug afka qalaad qaadku saynu ognahay wuxuu keenaa dhibaatooyin badan oo dhinaca caafimaadka ah haddii aynu taxno waxaynu gaadhsiin karnaa ilaa 20 ilaa 25 cudur oo kala jaada oo ku dhaca maskaxda deefshiidka neefmareenka iyo kuwo kale oo uu la saaxiib yahay oo uu u soo jiito ijtimaaciga xaggeeda u soo jiito ayaa maartay halkan ku taxan oo aynu sheegi doonaa qaar ka mid a qaadku saynu ognahay horta daraag ahaan iyo compositionkiisa ama waxa isugu geedkani uu ka kooban yahay ilaa hadda xitaa lama dhamaystirin laakiin inta ugu waaweyn waxaa ka mid a mukhadaraadka kuwa ugu culculus sida amphetamines iyo atropine iyo alcohol kuwo kaloo maxay atay iyana sahlanna waa ku jiraan wax yaroo biyo ah wuu wataa laakiin waxaa ka xoog badan waxa kale ee khatarta ah ka xoog markuu qofku muddo dheer cuno wuxuu ku ridaa walaahow iyo walbahaar ayuu ku ridaa ila wixii waa drag qofku wuu baranayaa marka waktiguu cuni jiray haddaanu cunin qofkii nafsiyan waxbaa ku dhacaya jidhkiisiina waxaa ku dhacaya caajis badan iyo walaahow iyo fikirkii oo ka xumaada markuu in badan cuno qaadku wuxuu ku sameeyaa qofka waxa la yidhaha stimulant wuu baraarujiyaa baraarujinta qofku wuxuu moodayaa marka inuu qofkii raaxaystay oo wax badan adduunkii ka ogaaday dabeedna waxaa laga yaabaa inuu fikir badan oo marka hore uu keeno fikirkaasoo marka uu qaadka qofkaasi dhammaysto cunaaga ah ku dhammaada waxaan haddana sal lahayn fikirkii oon sal lahayn haddii uu sal yeeshana dhinaca xun sidii uu sheegayey siduu sheegayey wasiirka amnigu dhinaca xun ee khatarta ah ayuu u dhacaa iyo inuu qofkii sameeyo falal maaragtay hadhow aan ku habbooneyn mujtamaca isagana maxay tahay dhibaato u soo jiidi kara cudurrada maanka ama maskaxda uu ku dhaliyo oo kala sahsahlan ka ugu horreeya marka hore wuxuu keenaa hurdo la-aan badan qofkii hurdada waa ka tagta qofkii markaa uu isla hadlaa markaa kadib markuu isla hadlo muddo waxaa imanaysa markaa in maskaxdii ay qaybtii fikirka inay dhaawacanto oo dabeedna xiskii si tartiiba uu u lumo oo marka dambe qofkaas ku dambeeyo haddii aan ilaahay uga sahlin inuu ku dambeeyo waali cudur waaliya waxaa jira xagga dheefshiidka inuu cudurkaasi ku keeno waxyaalo badan oo halis ah mararka qaarkood qofka wuxuu ku keenaa calool istaag mararka qaarkood wuxuu ku keenaa shuban shubanku waa markaa bacteria la falgasho shuban buu keenayaa laakiin markuu caadiyan yahay koos biyaha jidhka in badan buu nuugayaa oo qofkii atrobiintu waxay keenaysaa inay jidhka biyaha ka qallajiso ku jira sidaa awgeed waa inuu biyo badan cabbaa hadduu biyo badan iyo sharaab badan waayo calool istaag baa ku dhacaya dabeedna calool xanuun baa haddana kusii dhacaya waxyaalaha gastriteska la yidhaah oo xuubka calooshu inuu xoqmo ayaa marka dambe imanaysa waxaa kaloo ku imanaya qofka in xitaa xubnaha kale ee jidhka uu maxay tahay dhibaato u keeno sida appendixiskoo kale waxaan anigu xaqiijiyey marar badan in xanuunka la yidhaha appendixiska ama appendicitis afka qalaad subcasaa'idka carabida markuu bukoodo inta badan dadka qaadka cuna laga helo
gudihiisa qaadkii ku jira oo qaadkaasi markaa u keeno inflammation qaarkood waa ku qarxaa saasay ku dhintaan qaarna waa laga gaadhaa marka laga gaadho laga qalo waa nafisaa qofku laakiin maxaa keenay sababtii oo dhan qaadkaas oo badan wuxuu aada u dhaawacaa afka iyo inta maaragtay lagu cunayo afka iyo camanka iyo ciridka iyo ilkaha intaba dhaawac buu ku sameeyaa dhaawac khatara oo marka dambe u keena ilka beel ama xanuunada waaweyn ee khatarta ah ee sida loo yaqaano kansarka ku dhaca ciridka ama carabka ayuu keeni karaa khataraadkiisu aad bay u badan yihiin mararka qaarkood wuxuu sahlaa in qofka uu ku dhaco cudurka la yidhaha cagaarshowga maadaama geedkii yahay geed aan la dhiqin oo aan maxay tahay la biyo raacin oo sidiisa lagu cunayo waxaanu xasuusnahay waqtiyada koleraga uu waddanka ka jiro waanu mamnuuci jirnay qaadka gebigiisa waa la joojin jiray sababtoo ah qof cudurkaa qaba hadduu soo taabto boqolaal qof buu qaadsiinayaa hal xilmo oo qaada oo qof kolera qabaa soo taabtay ama saxaradiisii gaadhay oo contaminated noqday wuxuu gaadhsiinayaa boqolaal qof oo kale ayuu cudurkii ku lidaya marka waxyaalaha la mamnuucay ka mid tahay khudaarta iyo qaadka iyo waxyaalaha laga joojiyo cuduradaasi jiraan isaguna waa u sahlaa wuxuu kaloo sahlaa maadaama qaadku aanu keligiis hayn oo had iyo jeer bulsha isu timaado bulshadaasoo laga yaaba rag iyo haweenba inay leeyihin cudurada marka la isqaadsiiyo ee kalena way fidaan oo noocyo badan isugu jira oo qaarkood ay ku cululiso cudurada loo yaqaano kuwa sutagga ka dhasha rag iyo haweenka iyo marka dambena qaarkood noqdaan cudurka HIV/AIDS oo cudurkaasina marka hore kuwa yaryar buu ka soo bilowdaa marka dambena wuxuu ku dambeeyaa cudurka haweenka halista ee aan dawadaba lahayn waayo waxaynu ognahay caalamku inuu cudurrada noocaasa marba heer marayay oo marka mid dawo loo helaba sida jabtidoo kale xabadoo kale marka dawo loo helo markii daba ilaahay subxaana wa tacaala inuu keeno mid halista maadaama aan la ogolayn maxay tahay rag iyo haween aan isu xalaalayn inay isu tagaan cudurrada waaweyn khatarta inay ka dhashaan HIV/AIDS-ku ka mid yahay si aan dawadiisuna ay u adkaato haddaynu kaa dawohayna waxaa la filayaa inuu mid kasii darna yimaado ilaahay naguma keeno dadkana waa uga digaynaa dhammaan waxyaalaha uu keeni karo qaadku wuxuu kaloo keenaa inuu qofka ka kaxeeyo hamadaba ka kaxeeyo ragga inuu hamadaba ka kaxeeyo inuu maxay tahay dhasha ka kaxeeyo inuu marka dambe qoyskaba burburiyo oo isagoo qaadku sabab u ah qoyskii soomaaliyeed ama qoyskii carbeedba de meeshuu doona ad joogay iyo yamanna aad baa lagu cunaa soomaaliyana aad baa lagu cunaa inuu maarata xaggaana ka burburiyo wuxuu kaloo ka burburinayaa dhaqaalihii buu ka burburinaya oo waxaynu ognahay qofku isagoon qadayn inuu horta qaadkii raadinayo waxaa laga yaaba qofka aan shaqadahayn inuu marka ugu horreyso ku weydiisto inaa qaadii qaad isagoon ka odhan qada ii qaad taas maxaa keenaysaa because waa drag qofkii dhiiggiisii wuxuu rabaa draaggii inuu la kulmo si maxay tahay uga baxo jawiga uu ku jiro ee foosha marka waxaan rajaynaynaa ummaddeenna in laga wacyigeliyo in laga joojiyo sababtu waxa weeye iminka dowladda ingiriiska waxay ku dhawaaqday in maxay tahay qaadka la joojiyo mudday u fasaxday dadka soomaaliyeed way yidhahaan bal dadkan waxaan horey u cuni jireen jirkooda ku jiraa bal inay ka waantoobaan muddaa loo fasaxay muddo dheer bay ahayd ingiriisku mar walba waa ogaa geedku inuu yahay khatar oo daraag yahay laakiin dadka soomaaliyeed baa xoogaa loo seeta dheereeyey ma ay suuro gelin dadkii markaa way mujtamacigu kusii batay kuwoodii baa xitaa iminka kusoo biiraya haddii aan laga afqaban saa awgeed bay u joojiyeen dowladda kenyana waxay isku dayeysaa inay innaga wixii ka baaqday ee meelaha ka loo diri jiray inay innaga inagu soo celiso waxaynu ognahay walaalayaal in maalin walba aynu 50 warshadood qiimo ku fadhiya aynu qaad ku iibsano waxayna tahay haddaynu qaadka joojin lahayn meel walba intaynu warshad ka dhisno shaqalaaniba ma dhacdayno dadku waxay dhahaan shaqalaantaa noo geysay shaqalaaniba ma dhacdayn carruurteena iyo dhallinyaradeennuna maxay tahay ma hajireen oo maxay tahay may noqdeen ama kuwa ku biira buraadeeda ama kuwa tahriibka aada may noqdeen waxaan rajaynaynaa in mujtamacu isugu tago yar iyo weyn caaqil iyo shariif
sidii arrintaa wax looga qaban lahaa kuwa qaadka cunaa waxaan rajaynaynaa inaanay dhibsan hadallada markay maqlaan oo aanay odhan kuwaasaa la qaadka joojinaya qaadka waa la joojinaya laakiin si nidaamsan waa loo joojinayaa oo loo yaraynayaa waxaana ta mujtamaceenna aad iyo aad u dhaawacay mararka qaarkood waxaan anu arkaa wasiirka amnigu sheegayay marka qaadku soo imaado dalka soo galo xitaa security-gu waa seexdaa qaadkaa loo jeestaa qaadka ayaa loo jeestaa qof wax ilaalin karaa ma jiro dadka qaarna waxay yidhahdaan magaaladoodu soo maro magaalada waa madaxweyne baa soo maray maalin baan aleerayga madaxweyne maahe waxaad sheegaysaa waa qaadka qaadka siduu madaxweyne u noqon karaa marka waxa weeye waa hallucinationka iyo waxyaalaha uu ku riday maskaxdii dadka maxaatay haweenkeenna yidhaha waa ka shaqaysanaa shaqo kaloo ka fiican baynu helaynaa shaqo kaloo ka fiican ayaynu haweenka u helaynaa waxaan rajaynaynaa in qaadka maxay tahay dalka laga dabalgooyey laga joojiyo si aynu u noqonno mujtamac jira oo nool caalamka intiisa badani ma cunto waana jiraan waana fikiraan waxna way qabsadaan intaasaan kaga baxaya hadalkaygii